بسم الله الرحمن الرحيم. مالين وناكسن سو دhowaada maanta waxaan dul istaagaynaa nima kale اعتصامta hawiye iyo اعتصامta yada bal baan isdhinac dhigaynaa waa cali wajiis oo muqdisho fadhiya iyo siyaasi maxamuud xaaji yuusuf waa garanaysaa sheekh wabiir ninkii marna dhihi jiray daash waa gaalo asbuuc ka bacda yiri ka laabta gaalo maahe هيا مر لو الله صوغمي وانا صوغمي حتى حار با laga soo gamay waa dul istaagay bal sheekh ma ali wajiiso asna اعتصامه aqligiisa dameerkiisa baan tusaya oo kitaabku wato kanoo daarooda garow ku fadhiyana kitaabku wato ku tusaya iyo ali wajiis sida uu xukumo sidoo kale waxaan ka marnayn saaxiibkay cabdi xirsi maanta waa dul istaagay cabdi xirsi واي أنكور مرو سياسي شيخ لما ورنكرو محمود حاجي يوسف أو قروا وكنول شيخته إنه يا شيخ البلد حد غير لنا يعني أيوب يا شيخ عاي اعتصام صبر أورتا مظاهرات كذا حياتورة أنا أيوب أنا عندنا ماذا وحيد بنت الله وير الكوة هل كان صادق تا واكل فيا سبع فريد الجارسي وايه شيخ وبير ما واقف بحش شيخ وبير موضوع هذا كيم شمعي هذا اللي صورنا في بوحو قبطي مساجد شيخ علي وذا كسو عايو وصافريست waxa uu leeyahay Puntland ayaa midnimada Soomaaliya ka hortagaysa ama diidan bilka horna wuxuu yiri xamar xasan buu xadreeyay bal intuusan halkan ku soo laaban markuu xasan sheekh maxamuud ka dul barooranayay ila dhageyso السلام يا ولا ما هاد علينا يا مدحوينها دولة الفدرال الصومالية دكتور شيخ حسن الشيخ محمود وشركة قبل قابديسة سو هوري يقدالبا مسؤولية هذا لها هذا الكائنت علماء ذكو آدنيت ولا يري وحكا دمان مجران وتاغيرينا وأوسو سفرني إلهنا وحن كبرينا نقضه شركي وكسو بحه وحمدان أدون كذا يا آخر هذا وعنفعه حسن بمركن لفلفية وحا سيقدر نقبل على هذا وحان سلام يا دكتور شيخ حسن شيخ محمود نيجي واحد الحاج شيخ محمود بالعيا وحي دكتور شيخ حسن شيخ محمود شيخ قرقورتي وكبلا نكاسي نكا او شيخ وشيغيو وانيكا هويوينكي عرورتي دادكي بحرير كرها في مقدشو نكا يحباريان إلهو حسن ديل إلهو نايقبو ايكو هيانو بو سيدا يا سيدا شيخ حسن شيخ محمود شيخ قرقورتي شيخ علسو بلي واي انتا كباعي وصولات شرب بارو قبصة ماشو شركي waxa ka soo baxay in la gaalaysiiyo reer Puntland siyaasiyiintooda la yiraahdo midnimada Soomaaliya waxay ku yihiin lid ku yihiin waa kana natiijada shirke ila dhageyso midda labaad inay jeedisayna waxa weeye tafaraaruqa iyo qabyaalada iyo gobolaysiga oo maanta siyaasiyiintii qaarkood ay ku faanayaan waliba reer Puntland in wadanka la kala gooyaa wax dhibaato ah ma leh dadkii la rabay ummadda midnimadeeda inay ilaaliyaan iyo magaceeda iyo sharafteeda oo loo wakiishay iyagii baa dalkii duminaya waynu maqlayn waa midda labaad inay jabisay midda saddexaad inuu ku jabnay waxa weeye cadawgii iyo gaaladii ayaynu dhagaha u furnay ummadana cadawgeedii ama dawladaha deriska ha noqdeen ama kuwa ka garowe masaajid ku yaal oo sheekh cali la yiraahdo ayuu khudbadii jimcaha ka akhrinaya ninkaas diinta uu haysto waa diin halka fadhida way halka dhunta hadba cidii ku shubata buu fadwooda tusaalna waxa kugu filan garow aan hooyo laga qixinayn garow aan laga booranayn garow hadii la ku rooyo dadkeedu nagi yahay garow cagaf la wareegayn buu dadkeeda wuxuu leeyahay midnimada diidantii
حسن محا ugu sujuudi weydeen حسن maxaa u dhihi weydeen دكتور شيخ حسن شيخ محمود شيخ غرغورته شيخ علسو maxaa u oran weydeen bulay xagee ku aragtay malgarowo caan Soomaaliya laga soo horjeedo garowo midnimo ka soo jeedo xagee ku aragtay wuxuu leeyahay khasab maxaa xasan loogu niikin waa واعتصامتا halkan joogto oo daarood ku fogaan may miisaan ay saaraya okay dhaga kale inta markuu yiri ninka ya cali wajiis wuxuu soo qoray ay sheegay cali wajiis wuxuu soo dhigay qoraalkan wuxuu yiri i'tisaamtu waa xarakada ilaalisa midnimada ummadda Soomaaliyeed kuwa Somaliland jooga ay kama gorgortamaan midnimada kuwa Puntlandna shirarkay nugu yimaadaan ayagoo diidan madaxweynahooda wayna la xantaan wayna la caayaan reer Puntland halka ay nugu yimaadaan waa kan inay godhaba u yihiin cali wajiis oo halka fadhiya oo abgaalnimo iyo hawiyanimo difaacanaya oo aan qarsanay tusaale ama soo laabto sheekh wabiir sheekh lama kare maxamed xaaji siyaasi aan soo laabto kani waxaan idin daaraya saaxiibkay cali wajiis كسماي على وجهه يا له يا اسكو هيستا سودا احمد maxaa kismaayo loo kaxaynaya ujeedada lama ku sheegay kismaayo Soomaali baale hawiyaale buu leeyahay dhageyso waqti kismaayo dibkeedu ma dhamaanayo ila Soomaali loo celiyo oo umada Soomaaliyeed si xur ah dadka kismaayo dadka Soomaali ugu ilbaxsan ugu tirada badan ugu barwaaqaysan wadanka ugu fiican waaye laakiin hal qolo haday isku daydo wiil inay ku saydarayso kontomayadii yaa lagu soo fashilmay wiil US yaa ku fashilantay inay qaadato damacday wiil kuwa kale hadda isku haysan oo ku fashilmi doona kuwa ka dambeeyna ku fashilmi saas uu leeyahay madaxweyne Allah yarxam maanta akhriyo marka waxaan jawaabtaada ku gabagabeynaya baas jubba inay alamaamih Mareykan noqoto ma loo baahno ama Jubbaland waa dal fiican Sheikh Ahmed Atalaxum ku dhacday Sheikh Ahmed ماشي قفك دو كراغو مكتب باهي ku raagtay mooradaad milkigaada malaysa inay kamid tahay waa gartay maadaama meesha uu ku daahay adagu way cali wajiis wuxuu taagan yahay kismaayo reer baa sheegtay inta reerku haystaan oo daaroodku meesha fadhiyo oo ogaadeen u xukumayo kismaayo ahaan mayso hasan dhigi mayso halka kismaayo hadii la rabo Soomaali gacanta loo gasho Soomaaliya hawiyaha Soomaaliya يا صوماليا هوية صوماليا أبجال با صوماليا هراب با صوماليا صوماليا استيالوي انت يدارات قاعد تقول كده قال قاعد تقول كده قال على عد بقاعد تقول كده قال من ذو بقاعد تقول كده هذا القصاص احمد هسور الشيخ اسماعيل والصومالي قاعد توسوقش حسن قاعد توسوقش واعتصامته هوية هنيه هاس يضمير كاس ينمضاس يدفع عشان قبيل كده اللي برادو اعتصام طريقه محلصيه شري نيكا هذا انشدي ومحمود وسياسي محمود حاج يوسف شري حسن داهر ويس بو تغرو كسو وير درس دق اسا يكوي كره دق بقى ما انت شيخ وجيس بوسكي حسن داهر ويس كجيره dadkaas aan ka hortaagnaa reer Puntland dadkaas weeye waxa sheekh adii sheeganay sheekh maaha waa shayaadiin wey dadkaas i'tisaam markaad fiirisid waxa isleedahay tafsiirtooda waxay ka soo jeedaa ninkii la oran jiray Abdullah ibn Salam waa dadkii waa tafsiirtii Abdullah ibn Salam waa munaafiqiin wey ashhaada waa kaga horeeyaan masaajidka waa kaga horeeyaan laqadada waa kaga horeeyaan xanta waa kaga horeeyaan xaaraanta iyo umada dhacda waa kaga horeeyaan إلهي ما الله عندك أبغي ماي عندك أبغي ماي كنت هذه الشيء مصيبة أنا أيجا هين صوماليا ما حيسته لكن وابس نعم ورويل كهوية دمير بولا يهوديان كيسي حافدي سحور هذرية السوء اعتسام كيسي منافق كيسي ولا أنا منافق أيجا محاكل عاي ولا يا منافق أيجا حاجات دمير كاد حاجات النمدي كاد حاجات النمدي كاد حاجات قبيل النمدي حكاد اسكاسيه فرينتا دارود دخاسوتا waxa sheekh idin sheeganaya wax noocaas ah diintoodu waa halkaas caabida halkaas wax ka arkaan indhoodu waa halka oo diintoodu waa halka oo kitaabkoodu waa halka waxa leeyahay siyaasi maxamed xaaji yuusuf waxa leeyahay maxamedow magacaan sheekh iska dhig
haddaadan dhigayn ninbaa walaalo geela salaada ka daa oo addada ka daynayn salaada casar ka daadi oo addada ka daynayn subax dambe ka daadi oo kuwa maahay walaalow